iyadoo muddadan dambe baa si weyn looga dareemayay deegaamada Woodward iyo Balecad qabanqaabada aaska qaran ee loo samaynayo Galaha u naxariistay Garaad Abshir Saalax Maxamed ayaa waxaa maanta gudida qabanqaabada aaska qaran ee beesha guuleed garaad ay ku dhawaaqday muddada iyo waliba meesha muddada la aasi doono iyo waliba madasha lagu aasi doono Allah u naxariistay Garaad Abshir Saalax Maxamed uqaasha waxgaradka culimada iyo haldoorka beesha guuleed garaad oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Tani Woodward ayaa iyagu markaasi ummadda Soomaaliyeed u shaaciyay madasha iyo waliba muddada la qaban doono inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan uga tacsiyeenaynaa geeridii ku timid Garaad Abshir Saalax Maxamed si gaar ah waxaan ugu tacsiyeenaynaa qoyskii ilmo Garaad Abshir leenahay samri iimaan Allah inaga siiyo isagana jannatul firdawsa Allah ka waraabiyo waxaan kaloo ka cudur daaranaynaa hore waxaan u sheegnay in aaska garaadku ka dhici doono meesha la Woodward laakiin se duruufo yimid awgood waanu bedelay waxaana laga dhigay meesha la Balecad waxaanu jeedinay in lagu qabanayo aaskiisa magaalada Woodward duruufo jira awgood waxaanu u raray aaskii in lagu aaso magaalada Balecad sida daraadeed dadweynaha ka soo qayb galaya meel kasta ay joogaan waxaan u sheeganaa inay ka soo qayb galay doonaan insha Allah bidmillah maalinta isniinta ayaa lagu aasayaa Balecad waxaanu ka hadlaynaa oo ummadda u sheegaynaa Garaad Abshir aaskiisii iyo geeridiisii sidaad u maqasheen ayuun baanu isugu dadka ogeysiinaynaa ummadda wixii muslina qof yar iyo qof weyn madax iyo mijo culimo iyo cuqaal baanu ogeysiinaynaa u sheegay duruufaha jira ay isu bedeshay Balecad aaskiisii laga dhigayo taariikhda laydin sheegay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaanteen waxaynu taxsiin u diranaa ummadda Soomaaliyeed geerida dhacday ee garaadka ku dhacday ee xaqa Ilaahay jannada raxmada isaga ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed eheladii uu ka geeriyooday raaskii uu ka geeriyooday beelweynta dhulbaante waxaan uga tacsiyeenaynaa geerida dhacday ee ku dhacday Garaad Abshir ee xaqa isagiina jannada raxmada Allah ka waraabiyo waxaan u malaynayaa inta wax raacay ugu dambeyntii waxa weeyaan Balecad weeye waa degmada Balecad weeye duruufo badan iyo wadado iska adag iyo wax badan ay iska jireen hal waliba geedkay ku dhashaa waa nasiibkeed ummadda Soomaaliyeed ee wadada soo mari doonta ama wax ku dib noqon doonaan meesha turunturooyinkeedaas way iska leedahay hal isaga dulqaatana kaga soo qayb galeen meel ay joogaanba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sidii odayaashii hore ay sheegeen run ahaantii waxaanu ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka uga tacsiyeenaa geerida ku timi Garaad Abshir Saalax Maxamed oo kowdii bishii ku geeriyooday waddanka Sweden waxaanu ummadda Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in aaskii garaadka uu dhici doono haddii la hayno maalinta 12 bishu tahay maalinta isniinta ee nagu soo aadan weeye insha Allah biidnillah al-kariim waxaanu u diyaarinay ummadda u timi tacsida ama u soo socota tacsida garaadka insha Allah biidnillah al-kariim meeshii ay degi lahaayeen iyo meeshii ay ku nasan lahaayeen iyo meeshii ay noogu ducayn lahaayeen iyo meeshii ay noogu tacsideen lahaayeen haddii la haydmo meesha la yaado Balecad loo bedelo ummadda Islaamka saas u sheegnaa waxaan leenahay inay ka soo wada qayb galeen si caali sharaf leh uga soo qayb galeen si kastaba haatee waxaa muddadan dambeba si weyn uga socotay deegaanka Woodward qabanqaabada Allah u naxariistay aaska qaran Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka caalamiga ah Som News Woodward